السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودنبالكيني سقالاد دنبالذينا نفتاضنا حقله. سؤالي يقبضنا حالي تولي إسو قادي حلقتي سيديداد waxay ahaayeen sideen khushuuc u yeeshaa, sidee baan ducadayda u hagaajiyaa, sidee baan naftayda ugu dhowaadaa, sidee baan waxaan samaynayo sida ugu wanaagsan u sameeyaa, sideen xidhiidhkan Ilaahay la leeyahay u hagaajiyaa. Dhambaalkan waxaynu bixinay Ilaah cuskasho. Ereyga af Soomaaliga ee cuskashadu haddii fadhidid oo qof kale oo fadhiya ama kursi kuu dhow ama dhagax kuu dhow ama bakooradaadaad haysato aad gacanta ku adkayso tan kalena ku kacdo waad cuskatay shayga. Sababta aad u cuskatay waxa weeyaan in weydka iyo culayska jidhkaaga uu kula qaado oo murqahaaga uu ku kaabo in jidhkaaga inta kale ay istaajiyaan. Sidaas leeg Ilaahay cuskashadiisu waa awood iyo aqoon iyo ogaal dalbasho. Ficil kasta oo aynu samaynayno nolosheenna kala dhinaanta uu kala dhiman yahay waxa buuxin karaya oo hagaajin karaya oo bili karaya oo qurxin karaya in Ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu la cuskano aynu la kaashano aynu kaalmo iyo waxa weeyaan gargaar weydiisano. Cibaadadeennu ma dhammaystirna ilaa iyo waxay ku dhammaystirantaa cuskashada Ilaahay aynu cuskanayno. 17 jeer ayaynu maalintii ku soo celinaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin. Ilaahay adigaanu ku caabudaynaa. Cibaadada aanu ku caabudayno iyo wax kastoo wanaagsan oo aanu isleenahay sameeyana aadaanu ku cuskanaynaa ama aanu gargaar ku weydiisanaynaa ayay ka dhigantay iyaaka nastaciin. Isticaanadu waa inaad cid kale cuskato, awood ka dalbato, aqoon ka dalbato, ogaal ka dalbato, tawfiiq ka dalbato, waa inay cid kale ku garab gasho ay ku gacan qabato oy kula hagaajiso ficilka aad xilligaas ama markaas wadid. Cid la aqoon dalbado, laga ogaal dalbado, la awood iyo kalsooni iyo faham iyo tawfiiq weydiisto waxa u mudan Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Naftan Ilaahay baa abuurtay, dareemadeeda, kacaakufkeeda, loolanka gudaheeda ka jira, caafimaadkeeda iyo caafimaad darrada ay marar badan iyadu gacmaheeda ku keensato, kala dhinaanshaheeda iyo korriimada ay samaynayso intaba Ilaahay unbay cuskan kartaa. Cid kale oo fahmi karta madaaqasheeda, albaabadeeda iyo daaqadaheeda ma jirto oon Ilaahay ahayn. Cid kaloo nuxurka naftan iyo afcaasheeda fahmi karta oo aqoon iyo ogaal nafsadeed oo xeel dheer ina siin kartaa ma jirto Ilaahay subxaanahu wa tacaala. wax kasta oo aan Ilaahay loo cuskani waa baatil. wax kasta oo Ilaahay loo cuskadaana way bilan yihiin oo way qurux badan yihiin oo way bulaalaan oo way baraalaan oo way hagaagaan. kolkaa dhambaalkan waxaynu ku baranaynaa duco ka mida ducooyinkii Nabigu calayhi afdalu salaati wa atamu tasliim uu ku ducaysan jiray barayna saxaabi oo aad u jeclaa Mucaad la odhan jiray. fariimaha markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam baraya saxaabadiisa wax naftooda iyo adduunyadooda iyo diintooda anfacaya qaabab kala duwan ayuu u gudbin jiray. mid walba oo saxaabada ka mida marka uu duco farayo ama arrin wanaagsan farayo wuxuu u sheegi jiray qofkaasi meesha uu ka joogo. ducadan markuu rasuulku sallallahu calayhi wasallam barayay Mucaad wuxuu ku celceliyey waan ku jeclahay Mucaadow, waan ku jeclahay, waan ku jeclahay. ducadan ha ka tegin inaad akhrisato salaad kasta dabadeeda ama markaad dhammaysato sallallahu calayhi wasallam. ducooyinka shaamilka ah ee rasuulka sallallahu calayhi wasallam ka soo arooray culimadu markay dul istaagayso waxay ka mid tahay ducadani ducooyinka ay ilaahaan waa anfacu ducaa. waa duco midda ugu anfaca badan leh, midda ugu anfaca badan leh. ducadani waxay kaa kaafinaysaa wax kasta oo kala dhinaansho ah oo aad dareemaysid. waxaynu ogsoonahay emotionskeena iyo dareemadeenna
iyo laxooyadeennu inaanay hayn kuwo 24 saacadood ee maalinta ah isku meel jooga. mar iimaankaagu u sarreeya, marna wuu hooseeya, mar waad daalan tahay, mar enerji baad haysataa, mar niyaddaadu way balan tahay oo rajo iyo riyaaq baa kugu jira, mararna waad niyad jabsan tahay, marar culays baad dareemaysaa, marna fudayd baad dareemaysaa. xaaladda ruuxa bani aadamkaahi waxay isla beddeshaa wax kasta oo hareerihiisa ka jira, maaha mid meel keliya joogta. saasay tahay ruuxa muslimkaahi wuxuu ku dadaalayaa inuu ku jiro xaalad cubuudiyad ah ama addoonnimo ah 24 saacadood ee maalintiisa ah, si markaa dareemadaas iyo isbedbedelkaas iyo duruufahaas iyo hadba xaalkiisu meeshuu maraya ayna u kala dhinin. waxaa la yidhaaho addoonnimadiisa waa inuu ilaahay addoonnimadan ku lahaa uu cuskadaa, awood weydiistaa, aqoon weydiistaa, kala dhinaanshihiisa iyo duloladiisa in uu ilaahay awdoo inuu ruuxu weydiistaa. qof aanu ilaahay hadayni ma hadaysna, qof aanu ilaahay aqoon barin oo afbarini af ma yaqaan, qof aanu ilaahay gacan siinin waxa weeyaan kabtiis ma yeelna. kolkaa cibaadaadka cadiimka ee waaweyn waxaa ka mid a inaad taqaanid sida ilaahay subxaana wa tacaala loo cuskado. ducadu inuu ruuxu ducaystaa waa cibaado, waa mukhul cibaada, waa mukha iyo makhiikha, waa madaxa iyo maskaxda cibaadooyinkoo dhan. inaad ilaahay tusto inaad u baahan tahay oo waxa ugu yar hadday kabtaadu kaa dilaacday, haddii midhaxdu kaa marato aad ilaahay weydiisataahi waxay dhammaystiraysaa dhadhanka noloshaada iyo addoonnimadaada iyo waxa lagaa doonayay. cibaado la sameeyo waa tan ugu sarraysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay udcuunii astajib lakum, iweydiista aan idin ajiibe. sifooyinkiisu inay xaqiiqsamaan waxay ka imanaysaa in ficilka cabdigiisu ula imanaya ma addoonkiisu uu ku baryo. ilaahay inuu mujiib yahay oo inay jirtaa cid baryaysaa, ciddaasina waa innaka. marka ducadani waxay odhanaysaa allaahumma acinnii, allahayow igu gargaar, ii gargaar, carabkayga gargaar, oo dhagahayga gargaar, oo laabtayda gargaar, oo lubigayga gargaar, oo wadnahayga gargaar. oo xubin kasta oo jidhkayga ka mida, hadday laf tahay iyo hadday qulqulka dhiiggayga tahay iyo hadday yacnii waxa ugu yar ay tahay, ilaahu ku gargaar. maxay ugu gargaar? calaa dikrika, xuskaaga ilaahu ugu gargaar, xuskaaga ugu gargaar. xusku ma dikriga ilaahay? afdalu dikri waa qur'aanka, waa hadalkiisa ah, waa tasbiixda subxaan allah, waa tahliisha laa ilaaha ila allah, waa istikfaarta astaqfir allah, waa salaa cala nabi sala allahu calayhi wasalam. dikrigu waa waxa ugu weyn cibaadooyinka ee ruuxu samayn karo. xadiis waa kii rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu acmaasha kuwada ugu wanaagsan ka hadlayay lahaa alaa unabbi'ukum bikhayri acmaalikum wa askaaha cinda maliikikum wa arfaciha fi darajaatikum khayrun lakum min infaaqi aldahabi walwaraq khayrun lakum min an talquu caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribuu acnaaqakum. ma idiin sheegaa acmaashiinna waxa ugu khayrka badan, ugu nadiifsan ee ugu barax taran maligkiina ilaaha boqorkiina ah ama ilaaha idin leh cinda maliikikum arfaciha fi darajaatikum, ee halka ugu sarraysa darajaadka idinka gaadhsiin karaya, kor idii qaadi kara, miisaankiina cuslayn karaya. khayrun lakum min infaaqi aldahabi walwaraq, idinka khayr badan inaad dahab iyo fida iyo waxaweyaan wax kastoo qaaliya aad bixisaa. khayrun lakum min an talquu caduwakum fatadribuu acnaaqahum wayadribuu acnaaqakum, idinka khayr badan intaad jihaad gashaan oo cadowgiina la kulantaan inaad waxaweyaan qoorta jartaan ama qoorta idin jaraan oo saa ku shahidaa. qaaluu balaa yaa rasuul allah sal ly slam, qaala dikrullaahi tacaala, dikriga ilaahay ka waran. yacnii dikrigaas inaad saxdid ereygiisa iyo ficilkiisa iyo ku dhaqankiisa sida ugu dhammayska tiran, ilaahay ugu raalli ahaanshiyaha badan inaad ugu dikradidood ugu cibaadaysatidood addoonnimadaada u muujisid, cidda keliya ee ku waafajin kartaa waa ilaahay. markaa ducadan ilaahay baad ku baryaysa, waxaad leedahay acinnii calaa dikrika, ilaahayow igu gargaar dikrigaaga inaan kuu dikriyo,
ficilka ugu khayrka badan ee aad jeceshahayna la imaado iwaafaji jirkayga iyo maskaxdayda iyo carabkayga iyo ahaanshiyahayga iyo anigoo dhanna ilaahu noo fududay kowina lagu waafajiyo 2 inuu ilaahay ku baro subxaanahu wa tacaala 3 inuu ku waafajiyo xilliga oo dikrigaasi ugu mudan yahay 4 inuu ilaahay ka aqbalo 5 inaad joogtaysid 6 in baraxtirkiisa iyo ikhlaaskiisa ku waafajiyo 7 in wax kastoo wanaag iyo barako inaad ku hesho ilaahay ku waafajiyo inaad ka mahadnaqdo 8 inuu haddana ku waafajiyo in ay kuu joogaan nicamkaasi iyo barakooyinkaasi wax weeyaan aad ku noolaato aad ku barakowdo aad noloshaada wax weeyaan ku indhadoogsato maxaa ka wanaagsan yaa yeeli karaa ilaahay unbaa yeeli karaa subxaanahu wa tacaala allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika dikrigaa markaad i waafajiso wax kasta oo dikrigaaga iyo xuskaaga iiga dhasha oo barakiya khayraad adduunya aakhiraba inaan ka mahadnaqo ay noqonaysaa waxay kaloo noqon kartaa wa shukrika ilaahay i waafaji inaan ka shukri naqo aan ka mahadnaqo nicmooyinkaaga kuwa muuqda iyo kuwa qarsoon ee aanan tirin karayn ee aanan taaban karayn aanan dareemi karayn ee aanan xataa erayo soo kooba haysanin wain tacudu nicmatallaahi laa tuxsuuha inaan ku kaco ficil kasta oo iga gudaya ka mahadnaqa wax kasta oo wanaagsan oo aad i siisay malu ahla daawuuda shukra wa qaliilu min cibaadiya shakuur shukrigaas inaad carabka ku mahadnaqdo xubnaha kale jirka ku mahadnaqdo inaad ka hadasho kuru nicmatallaahi calaykum in aad wax ka bixiso nicamka ilaahay subxaana wa tacaala kugu arsaaqay inaad nicamka iyo daahirka iyo saamaynta ay kugu leeyihiin iyo raadkooda aawadood ay kugu dhaliso inay taqwadaada ilaah ka cabsigaaga ilaah jeclaantaadu ay kor u kacdo kolka waa tawfiiqa kuu dhiibto acinnii calaa dikrika wa shukrika in ilaahay kugu gargaaro dikrigiisa dabadeetana kugu gargaaro haddana inaad u mahadnaqdo nicmad kasta oo aad haysataa hadday adduunyo tahay iyo hadday aakhiro tahay waxay u baahan tahay inaad ka mahadnaqdo mahadnaqaas waanad koobaynin baad ilaahay u cuskatood leedahay ilaahu i waafaji acinnii calaa dikrika wa shukrika halkaa kuma joogine wa xusni cibaadatik si laguu caabudo sida ugu wanaagsan maad oran sida ugu badan imisaa cibaado badan oo dadka ka soon badan oo dadka ka salaad badan oo dadka ka xaj badan haddana naarta weji loogu tuurayaa walciyaadu billaah ka quraan badan ummadda islaamka intay aayad akhriyaan ama quraan akhriyaan qoobta ka jariya dhiigga islaamka waxa weeyaan dhulka socodsiinaya marka maaha muhiimaddu inuu qofku cibaado badnaado ee waa in cibaadadiisu ay hagaagto oo ilaahay raalli geliso oo khaalis noqoto oo barax tarnaato wa xusni cibaadatika in aan cibaadooyinkaaga u sameeyo wejiga ugu dhammayska taran sidaad uga raalli tahay sida rabbi oo adiga ku raalli gelinaysa sida ugu dhab ahaanshiyaha badan sida ugu barax tarnaanta badan sida ugu mudan ee waxa weeyaan raacsan qaabkii iyo waddadii uu noo jeexay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee ka maran bidco iyo creativity oo bini aadamku leeyahay is leeyahay wax ku wanaaji laakiin meel kaliya waadi kale ka ridaysa fa ficil kasta oo aynu samaynayno ramadaankan hadday salaad tahay iyo hadday qur'aan tahay iyo hadday kuf tahay inaanu markayn kufno aynu soo noqonno cidda loo cuskanayaa waa ilaahay subxaana wa tacaala kolkaa ducadani waxay koobaysaa in aad ilaahay subxaana wa tacaala weydiisanaysid inuu kugu gargaaro ku waafajiyo tawfiiq ku siiyo dikrigiisa ka ugu mudan isagoo dikrigiisoo dhan uu mudan yahay xilliga iyo wakhtiga aad joogto ficilka iyo falka aad samaynayso intuba inay khaalis noqdaan waxay noqon kartaa inaad gaarigaaga wado waxay noqon kartaa inaad lugeynaysid waxay noqon kartaa inaad ilmahaaga naaska siinaysid waxay noqon kartaa inaad jikadaada joogtid waxay noqon kartaa inaad allahuma salli calaa sayidina maxamed goobta shaqadaada ku jirtid waxay noqon kartaa ayakaan geelaagiibaad la socotaa arigaagiibaad aroorinaysaa tawfiiq inuu ilaahay ku siiyo dikrigiisa carabkaaga ku rido
ficilka ugu mudan ee laxdada iyo daqiiqada iyo sekika ugu haboon ee kuu dhaweynaya isaga in uu ku waafajiyo, ku fahamsiiyo, ku awood siiyo in aad qabatid oo u qabatid sida ugu mudan, ugu quruxda badan, ugu waxa weeyaan macquulsan ee isagu subxaanahu watacaala uu raallida ka yahay. acinnii calaa dikrika, kolkaana ajarkaaga iyo darajadaada iyo miisaankaaga u ku cuslayo. dikriga maaha intan maskaxdeena kusoo dhacaysa inaad tukanayso ama taraawiix ku jirto ama aad meel fadhido. 150,000 oo weji iyo ka badan malaayiin weji buu leeyahay. ilaahay miyuu cid kale koobi karaysaa aanay jirin. inaad ay waraabinaysid, inaad ri wax siinaysid, inaad shimbira wax u daadinaysid, inaad qof indhala wadada ka gudbinaysid, in qof jaarkaaga caawinaysid, inaad dad masaakiina caawinaysid, inaad erey wanaagsan leedahay, inaad waxweeyaan aad ilka cadaynaysid oo dadka waxwey weji furan aad kula kulmaysid, inaad sadaqa bixinaysid, inaad zaka bixinaysid, inaad you name it, inaad ka qaadaysid waxaa la yidhaaho qodax wadada ka leexinaysid. tawfiiqda iyo tayada ilaahay camalka ku daro ayay ka tahay. marka wax kasta oo dikriya, wanaaga, baraka ah, ficil kasta oo mudan oo ilaahay raali gelinaya, xaalad kasta iyo waqti kasta iyo sakan kasta aad joogto ayaad ilaahay weydiisanaysaa intuu ku waafajiyo sida ugu quruxda badan, samayntiisana inuu jirkaaga iyo maskaxdaada iyo maankaaga iyo carabkaaga iyo xubnahaaga in uu xoog geliyo si aad dikrigaas sida ugu mudan cala akmali wajhi aad ugu gudatid ood ilaahay subxaana watacaala ugu dhawaatid. cibaadadiisa sida ugu wanaagsan inaad u samaysid, salaadaad istaagaysa sida ugu wanaagsan inaad u istaagtid, soonkaaga sida wanaagsan inuu noqdo, waalidkaad u samafalay sida ugu wanaagsan inuu noqdo, ninkaaga aad daacad u noqonaysid aad ajiibaysid sida ugu wanaagsan inaad u ajiibsid, ilmahaagu sida ugu wanaagsan inaad waxweyn u tarbiyaysid, xaaskaaga sida ugu wanaagsan inaad ugu dhibri sida waxweyn inaad uga adeegtid. acinnii alisticaana, wax ficila iyo habita iyo dhaqan oo aad samaysan kartaa ma jirto haddii aanu ilaahay tawfiiqda ku siiraynin, uuna ku gacan qabanaynin, oo markaad kufta kusoo kicinaynin, oo waxa weeyaan towbadda iyo soo noqoshada aanu qalbigaaga ku tuuraynin. uma taabu calayhim liyatuubuu, ma toobad keenaysa ilaahay oo marka ugu horeysa towbadda qalbigaaga geliya mooyaane oo ku waafajiya camalkeedii. kolkaa camal kastood samaynaysa, tallaabo kastood qaadaysa, allahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika ku ducayso.